kulankan oo ay ka soo qayb galeen odayaasha iyo waxgaradka ee salaadiinta ka soo jeeda gobolka Mudug ee ku dhaqan magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxa ay qada sharaf ugu sameeyeen madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. kulankan ayaa intiisa badan waxaa looga hadlayay nabadda gobolka Mudug iyadoo odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Mudug ay bogaadiyeen nabadda gobolka Mudug oo hadda maraysa meel aad u sareysa iyo safarkii madaxweynuhu kaga soo anbabaxay magaalada Gaalkacyo halkaas oo si nabad ah ku yimid magaalada Garowe. markii uu kulanku soo dhamaaday ayaa waxaa warbaahinta uga warbixiyay ujeedka iyo waxyaabaha looga hadlayay kulankan xildhibaan Maxamed Xasan Xuseen Calool Geel oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug ee jooga magaalada Garowe. bismillah alxamdulillahi rabbil aalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحوينها galmudug golaha wasiirada labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug odayaasha dhaqanka culimada diinka dhammaan ka soo qayb galayaasha xafladda waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xafladan maanta waxay ahayd xaflad Galmudug bay ahayd anagu maanta sida ogtihiin waxaan ka nimid gobolka Mudug ayadoo la hogaaminayo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxaan u ka mahad celinaynaa sidina la ku soo dhaweeyay deegaamada Puntland inta u dhaxaysa Gaalkacyo iyo Garowe si gaar ah waxaan ugu mahad celinaynaa degmada Burtale oo ayadu saayid xagga soo dhaweynta wadatay aad baan ugu mahad celinaynaa shirkan maanta halka la isugu yimid wuxuu ahaa dadkii reer Mudug ahaa oo ka yimid gobolka Mudug markasta ha yimaadeen gobolka jooga Nugaal jooga ayaa isugu yimid waxaan leenahay hambaliyo waa la isku bartay waa la iswarsaday waxaan kaga ballanay waana la ballamay waxa lagu ballamay gobolka Mudug nabadii ka jirtay in la dardar geliyo waxaan leenahay reer Mudug meesha maanta aan taaganahay waa Garowe waa isbaaradii ahayd qalbiga waa qaadnay waxaan muuqata midnimo Mudug waxaan muuqata kalsooni Mudug waxaan muuqata nabadii gobolka Mudug inay mirahan dhashay meel martay waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo gobol dadka ay reer Mudug ah waxaan leeyahay nabadda lagu fara adaygo nabaddu waa muhiim nabaddu dalka iyo dadka dhanba u baahan guddigii ka shaqeynayay ana oo salaadiinta iyo culimada diinka iyo odayaasha dhaqanka ahaa oo labada dhinacna aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay taariikhda ay xusi doonta waxaan leenahay taalooyin baa idin dhisi doona haddaad bahasha ka mira dhalisaan waxaan noqon doontaan 13 SOL oo kala noqon doontaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dadka dhamaana dhageysanaya waxaan leenahay shuushka waa baxay shuush oo bax Axmed Cabdisalaam Qaliif TV-ga Galmudug Garowe.